markan kale maxaa dhacay din another last bear market in EMI la keeno wax yar laga soo hoos maray trailer kale imaaday bam kala dhacay hadda intii la joogaa kadib maxaa dhacay another half ina dhacay wajid ka aragay marka hadii aan fiirin meeshan head and shoulder اسمه ستيل فورمن واي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا دكتور عبد الله iyo mar kale muuqaalka loo cusub muuqaalkan waxaa uu taxliilin doonaa oo taxliilin deep ku sameey doonaa BTC halkii aadi karto iyo halkii ku jihaysan tahay waxaa kaloo aad ugu fiirin doonaa dhowr indicator oo EMI-na Bitcoin Rainbow Wave-ka iyo Bitcoin Halving Cycle oo ah Bitcoin mar walba dhaqaaq ay sameynayso area DCA ka bilaabi jirtay take profit ka meel oo ka bilaabi jiray min weekly ilaa monthly time frame wasla eegina insha Allah iyo waxa kale oo aad u sameey doonaa ama idin tusi doonaa super cycle keeni aan sameysanay oo suuqa ku sugeynay markoo Bitcoin halkan kore area meelaan 9 ay mareysay aan sameysanay area ku sugeynay EMI-geena markii la isku daro wax dhan insha Allah waa isla fiirinayna halkay wax marayaan waxyaabihii dhici jiray mar walba sidii hadda wax u socdaan insha Allah taxliilin dhameystirna ku sameeynaa insha Allah waxaan bilaabeynaa monthly time frame keena ka soo bilaabeynaa ilaa daily time frame ku keenayna marka daily waxa ka hooseeya maadina okay monthly time frame Bitcoin hada aragno waxay ku jirtaa nasasheeray ku jirtaa markii weekly daily la joogo markii la joogo monthly gaadhe waxay ku jirtaa nasiina yar marka nasiinadaas mar walba halkay ku qaadi jirtay mar walba Bitcoin nasato waxay ku soo nasa jirtay area zone ku nasa jirtay area zone markii la keeno meelaas dhaqaaq laga sugaayay ay jirtay marka amal Bitcoin area la keeno area ahead ay oo resistance oo ay saboodo u noqdo marka another one markan kale maxay sameysay waxay ku soo laabatay demand zone kan ku soo laabatay halkaas ay dhaqaaq ka sameysay markan kale maxay sameysay ilaa zone ka korkaan u gaara area si ka dhaqaaq haddana intii taagan tahay area ay taagan haddii aan u fiirino fib level asaarno Bitcoin halkay joogtaa waa golden pocket ku dhex jirta waa meel fiican waa meel oo suuqa dhaqaaq ka sameey kara waa okay zone keena markii inoo joogto Bitcoin saa ay tahay oo monthly time frame keena ay joogno zone inoo joogto tagayna marka weekly time frame keena tagay BTC waxay sameey jirtay iyo wixii had sameynaysa soo fiir BTC sida halkan ka aragno way soo daadatay waliba iyadoo dhowr jaranjaro sameysatay area-dan isla jaranjarooyinkii waa sameysatay marka jaranjarooyinka waxa ku fiirinaynaa marka wax reversal ka raadinaynaa hadii aan soo furno indicator keeni ahaa indicator keeni ahaa RSI-geena oo inoo sheegaa RSI number 1 Nordic okay RSI-geena noobini waxa la fiirinaynaa marka daadashadan dhacday iyo dhaqaqan ku xigay price-ka wuxuu sameeyay okay daadashadan dhacday price-ka oo soo daaday kadib price-keen inta maxaa uu sameystay marka double low oo sameystay price-ka caadiga ee BTC wuxuu sameystay low iyo low kala sameystay halka RSI-ga oo noo sameeyay reversal oo inoo sameeyay okay halkan ka waran seeba halkeeda oo price-kan RSI-ga wuxuu noo sameeyay meeshan dhacday low higher low inoo sameeyay macnaha jihadi oo Bitcoin ay u socotay price-keeda iyo jihada RSI u socday laba jihay kala noqday okay area-dan hada fiirinayna isla simsina u jeednaa dhaqaaqa markay sameeynaysa Bitcoin dhaqaaqan
bamkan weyn oo dhacay wuxuu weekly time frame waxay BTC ka sameysay isla samsin ay riidaan inay ka sameeyaan RSI ga iyo price-ka waa ka arki karnaa. Marka waxaa fiirinaynaa marka cycle-kan u dambeeyay ma fiirinaynay midkan hadda soo socday kuwa hore aadeen midkan isla sidii ma sameysay la ma sameyn isla sidii. Okay, kii ka horeeyay ma sameysay yes, kii ka horeeyay yes waa sameysay. waa kana price-ka laba waa soo kala hoos martay waliba week oo ahaa waa kaala wida isla samsin waa kana waa sameysay. Okay, hore ma usii sameysay iriidan kalma ku jiro laakiin laba mar hore isu sameysay another time marka saddexaad ay soo laabatay noocaan oo kale marka saddexaad ayay soo laabatay. Marka okay, maxaa saareynaa marka trail line noo saar kale trail line keen halkaana logo orday break out laga sameeyay kadib waxa sii socotay. Okay, halkan trail line ma noo saarmay iidan hadii hay ka soo bilaawno oo logan ku xijino yes waa noo saarmay. hadii break out oo noo dhaco waa Bitcoin dhaqaaqeeda aad u weyn sii sameeyay doonta. Okay, maxaa halkaas xiga marka waxaa soo fureynaa magdhigeena soo fureynaa magdhigeena ku fiirinaynaa wixii ay sameey jireen marka. Okay, magdhigeena asigana muxuu noo sheegaa. Okay, cycle-kan weyn noo soo qabo. Okay, magdhi mar walbo cross sameeyo magdhigan cross sameeyo RSI cross sameeyo maxaa sameeyay jiray bulaan uu sameeyay hadda magdhi cross ma sameeyay yes RSI gana ma sameeyay yes waa ku xigtaa iyada. laakiin waxaa dib ka taagnaa marka cross meesha laga sameeyay inta cross markastoo la sameeyo low kala la soo aado. Okay, cross meesha laga sameeyay inta iriidan mujida isla wajigii oo kale halkaan ay cross ka sameeyeen new low la soo sameeyay kadib aal dhaqaaq iriidan ay cross ka sameeyeen new low la soo sameeyay reversal ka la soo abuuray waa la dhaqaaq marka RS magdhi reversal kiisa asigan waa kana asigan wixii RSI ga ka aragnay magdhigiisana waa u jeedaa. Okay, wixii RSI ga ka aragnay magdhigiisana waa u jeedaa. marka bullish cross magdhiga waa keesana isla samsi. marka maxaa dhaca marka magdhigan oo crossay oo new low la soo dhaweeyay magdhiga divergence-giisa la keenay kadib maxaa dhacay Bitcoin waxay dhaqaaqday 300% number ku dhow all time high-geeda ay ku gaartay kadibna waxay sii dhaqaaqday ilaa iyo 579% ay sii dhaqaaqday 600 iska leh all time high-geeda hadii la geeyo oo Bitcoin oo 120 iyo kii marka 120 marka muxuu sheegaa marka in 600% ay dhaqaaqday macnaha 6x hadii looga laga soo fiiriyay 7x amal ay tagayso looga x. laakiin magdhi cross ma ku dhacay kadib dhaqaaq ay sameeyay ka. marka weekly time frame maxaa ka aragnay bullish macnaha suuqa in la joogo waqtigii saxda ahaa oo dhaqaaqi lahaa divergence markii la abuuray kan la abuuray kadib maxaa dhacay cross magdhiga haysan wax dhan magdhi divergence oo regular bullish ka haysan oo reversal ahaa oo reversal divergence macnaha suuq inuu kala wareegay sheegay maxaa dhacay kadib bamwaaliya dhacay. marka Bitcoin maxaa ka filaynaa marka another dhaqaaq kale laga filaa Bitcoin another all time high kala laga filaa. Okay, another all time high intuu gaara marka okay waa isla fiirinaynaa iyada anagoo dhowr qodob soo qaadanayno waliba number 1 oo u dhigayno Fibonacci-geena ama Fibonacci retracement. Okay, waxaa ka bilaabaynaa cycle-kan another 3 cycle waxay ka sameeyeen
meesha ugu dambeysay suuqa oo tagay celcelis ahaan macnaha anagoo u fiirinay lambarada okay lambarada waxaa soo furinaynaa sii soo fur okay numberkan kan iska yar okay kan soo fur labadan soo fur okay waxaa kaloo soo furtaa 3 waa dhowdahay 4 waa dhowdahay okay numberkaas ama numberka ugu dheer numberkaas okay dhaqaaqan aad u dhaqaaqay okay kuwan kale laakiin waa soo gaabi doonaa kan waxay dhaqaaqday ilaa okay numberka u dhaxeeya kan labadan soo qaado okay kasta gaaray 4 juuste oo dhaqaaq kaasiis ilaa 4 oo dhaqaaq saagalkan 4 ka sameeyeen 4 wixii ka koreeyo ku dhamaaday 4tii ku soo laabtay kan okay cycle-kan halkiis soo aha muxuu ku soo laabtay asigan okay kan labada ku soo laabtay labada wixii ka hooseey wixii ka weyn iga tir marka lamadaas arabna lamada wixii ka weyn iga tir abad ii soo kordhimayaan okay lamada saar hal dhibic 61 daas iyo labadaas eriyooyinkaas marka aniga target noo ah eriyooyinkaas aniga target daa saarno okay hal dhibic 61 meeqa waa bitcoin waa 164,689 okay eriyooyinkaas marka take profit ka intee waa eriyooyinkaas waa marka saas baan ku hareena ma ku hareen wax kala si sameey doona markuu price-ka bitcoin markaas meesha tago take profit ma la jooga banaag ma suuq waqtiga la galay ma la jooga ama iskal waqtiga la holding gareelay la jooga waa isla fiirneena marka anagoo u fiirneena markaas indicator-ada bitcoin cycle bitcoin half cycle profit ka iyo waqtiga DCA ga bilaa okay suuqa divergence-gana u fiirina marka waxa fiirneena markii waxa soo furneena indicator la dhahdo bitcoin half cycle okay weekly waa soo taxliilinay monthly time frame ka fiirneena monthly time frame waxa dheena see wax u socdaan najigan iga tir okay bitcoin ka see u socdaan kood horta idin fahansiyo meeshan waxa ka muuqdo halving waqtiga bilaabmay profit taking waqtiga bilaabatay profit ending macnaha faa'iidada waqti la qaadanayo markay bilaabanaysay iyo faa'iidada ugu dambeysay markay suuqa laga qaatay kadib DCA ga markii la bilaabay waxa dhahay waa halving waqtiga bilaabay profit ka markii qaadashadeeda la bilaabay profit ka ana sameystay number u sameystay numberada u sameystay waa kana weekly inta u sameystay monthly saddexda number u sameystay macnaha asku celceli macnaha celcelis aan waxyaabo ay sameey jireen anoo u fiirneena marka last profit ending marka waqtigii profit kala qaadanay area ku eegid kadib waa la soo daatay suuqa DCA ga waqtiga la bilaabay macnaha waqtigii suuqa kala bilaabay suuq custom kilo yareynay price kan suuqa ma kilo yareynay maxaa meeshan ka jira accumulation ka jira amiskar ranjina ka jira meesha suuq waa la urursanay tartiib kadib nagasta halfina dhaca oo ah 216 bis 79keeda bisha 79keeda waxa bilaabmatay halfin kala kadib take profit ka bilaab all time ay mikili jabi kadib take profit ka bilaabay profit ending halkaan ku akeed kadib isla candle-kii xigay bear market ka bilaabmay marka la maxaa bilaawday bull market ka accumulation kiisa bilaabay area mujida marka la suuq maxaa laga sameeyay area accumulation kiisa ka bilaabay oo ilaa iyo wuxuu socday 1 2 3 4 bilood socday 4 bilood kadib suuq gurbiskiisa la bilaabay next half ina dhacay suuq waa dhaqaaqay ranging kala soo galay accumulation kala la iska watay kadib dhaqaaqa suuq sameeyay profit waqti la qaadanay wuxuu bilaabmay waqtigan oo bilaabay
profit taking waqtigaan oo bilaabay profitkan halkaan uu ku ekaa kadib maxaa dhacay next bear market aa dhacay next bear market markuu dhacay kadib area dhehayna haday reversalka yaa nagu jira divergencyga inay ka bilaabmatay waqtigii DCA la sameynaya ama la aruursanayay suuqa waaweynka aruursanayay marka retailerskana suuqa ka cabsanayay marka DCA waqtigaan ay bilaabatay kadib maxaa dhacay another half ina dhacay wajida halkaan ku ekaa kadib maxaa dhacay next bear market aa dhacay next bear market markuu dhacay kadib area dhehayna haday reversalka yaa nagu jira divergencyga inay ka bilaabmatay waqtigii DCA la sameynaya ama la aruursanayay suuqa waaweynka aruursanayay marka retailerskana suuqa ka cabsanayay marka DCA waqtigaan ay bilaabatay kadib maxaa dhacay another half ina dhacay wajida kadib profit taking halkan ku bilaabmatay oo profit start uu bilaabay faa'iidada in la qaato kadibna ugu dambeyn faa'iidada ka dhalkaas loo baxay oo ah bishii Agosto September October no ogeedin crashkii dhacay October-ni crashkii dhacay habeenkii lagu kala cararay suuqa ka hor take profit la sameeyay waxa la sameeyay marka bishii Agosto September u dhaxaysay October-ni bear market ka soo galay marka ultimately la sameeyay kadibna bear market ka bilaabay kadib maxaa dhacay meesha hadda u jeednaa marka muhiimada u soconay waxay ahayd marka area DCA ina fahantaan hadarta meesha maxaa ka muuqato ina aragnay start DCA inay bilaabmatay waqtigii suuqa la aruursanayay oo tartiib loo aruursanayay marka suuqana area mar walba oo accumulation dhacay waxa ka arki jirnay lamo saddex inuu ranging galo saddexda mar ugu dambeysay inuu ranging galo ugu yaraan meeqa bilowda range lagu jiri 1 2 3 4 5 6 waa 6 kan dhal waa kan 1 2 3 4 kan dhal waa kan 1 2 3 4 5 6 7 kan dhal waa oo min han bilow 6 kan dhal 4 kan dhal yes wax kasto macquul hadda tan maxaa ka arki karnaa bitcoin inay sameynayso area-dan inay ranging gali karto macquul sax yes hore u sameey jirtay inay ranging gali karto macquul area-yinkan ay u dhaxayso ee iska daban noqoto hal marba may dhaw laakiin waqtigii DCA gal bilaabay waa bilaabatay waqtigii suuqa galay waa bilaabatay kadib maxaa sugeynaa marka kala sugina hal fikir no profit taking keen inuu adiga profit kan la qaato oo ay bilaabato kadibna profitka end waa lagu dhaw area-dan marka tag insha Allah area-dan marka tagno oo inoo soo qabato halkaas hore profitka waqtiga la qaadanayo waa la joojiyay walaalkeeyo tag profit samee suuqana iska dhex fadhi okay waxa kala fiirinaynaa marka indicator-ka la yiraahdo Rainbow Wave Bitcoin Rainbow Wave sigana area suuqa ku dhaqaaqay sida ka aragno mar walba wuxuu dhaqaaqi jiray area ugu hooseyso kalarkan maxaa dhigi karnaa kalar la yaab leh kole waa kalar blue guduud isku dhex milmeen camal waa marka area qiimaha waa dhaqaaqi jiray another time area laga dhaqaaqo laakiin markaan kala loo salaato laga dhaqaaqo mar kale maxaa dhacday dini area ugu hooseyso dhaqaaqa mar kale maxaa arkaynaa dini in la taagan yahay area la dhaqaaqay jirin wujid in la taagan yahay kadibna suuqa laga filan karo another bump inuu noo sameeyo ina area saxdeed inuu taagan yahay halkan ka arki karna marka maxaa ka sugeynaa marka suuqa inuu noo sameeyo another bump insha Allah marka waxa fiirinaynaa marka jaarta aan sameeyna anaga oo suuqa aan ku sugeynay muddo aad u dheer meeshan waxa farshaxana ku yaalo waxaana daba socday EMI daba socday EMI-ga kaasoo adiga noogu hagaayay executable-ka oo trail line-kan ama iskale calaamadan hoose ee kala jeedo asareed war walba marka EMI-gan waxa way 65 way
65 EMI waa SMI ma aha marka area markii suuqa laga imaado maxaa arki karnaa oo bear market la joogay inuu sameeyay suuqa dhaqaaq aad u weyn uu sameeyay okay another time idin mar kale markuu areas imaaday oo halkaan oo ka imaaday waliba okay EMI ga okay EMI ga markuu imaado maxaa dhicay idin mar kale bam kala dhacday trend kani oo meeshii inta laga imaaway marka area-dana badalkeed dul bedelay markan kale maxaa dhacay idin another last bear market ka in EMI ga la keeno wax yar laga soo hoos maray trend line ka la imaaday bam kala dhacday hadda intii la joogaa trend line ka la joogaa EMI ga la joogaa waxaa macquul ah taxliilintii hadda soo sameeyeen dhowr qaybood kulli waxay noo sheegayaan police inuu sheegay tan maxay noo sheegay another bam kale inuu sheegay waxaa macquul ah in EMI ga hadda kan dalweyna ka soo hoos baxay kan dalku uu celiyay wax yar oo been ka soo hoos maray kan dalweyn ilaa iyo hoostaan uu ka soo xirmay laakiin kan wax yar uu ka soo xirmay macquul ah in area-dan la BTC kuna noqoto ranging cushion bam siisa mar kale laakiin haddii marka laga soo hoos maro waa meel kale loo wadaa kan dalweyn hoos soo tuurto meel kale bitcoin loo wadaa bitcoin markaas meel kale ayaa loo wadaa meesha hadda maxaa noo qoran bull market meesha ka dhacay another time meesha ka dhacay bull market meesha uu ka dhacay area oo ka dhacay marka next bull run loo dhigin marka meesha aan ka sugayno inuu bull market kan ka dhaco waa area-dan anigana hadarta marka rajayna marka inay ka faa'iideystaan fursadaha hadii taagan yihiin suuqa markuu dhakadaas ka hor tago sida last bear market ka hadarta intuusan bilaaban ka hor area-dan suuqa oo gashay badankiina Soomaaliyeena da Soomaalinahay marka maanta fursadaha u haysataan suuqa halkaan oo joogaa waa area aad cajiib oo joogaa marka inay ka faa'iideystaan fursad saxda maanta ay bixisa marka waxba suuqiya laga nijibin bitcoin waa dhimatay waxba lagu dhigin hadda ma arkays dad suuqan ka hadlay kaliya hal qof oo arkay oo ku dhahay bitcoin waa dhimatay oo suuqa warba ka heenin marka kadibna waxa arki doontaa maalmo kadib suuqa markuu bam waali sameeyo isla ayagii oo dhahay bitcoin waxay u soo tahalmeen marka waxa sameeyay marka fursad maanta taaginta ka faa'iideyso riska qaado riskiga hadda taamaad amal qaadin suuqa galid waxa waaye 90% win waa oo 10% macquul in bitcoin hoos iska sii aad iska diir laakiin 99% taa waxa dhigi kara in bitcoin dhaqaaq kala sameeyo halkaan mar kale fursad kale ka abuuri karto monthly time frame ka fursadaha meesha inuu abuuri jirtay ay taagan tahay weekly time frame ka fursadaha sidii abuuri jirtay isla same inay wax kasta u dhacayaan marka muu maleynaa maanta maalin ka fiican inay jirto muu maleynaa marka waxa kale oo isla fiirineynaa monthly time frame bitcoin waxay hor u sameey jirtay marka monthly time frame okay aniga u fiirinayna marka RSI waxay sameey jirtay oo macna divergence ah okay bitcoin area-dan markay bull market ka oo dhacay okay kan aga bilawnaa bull market ka markuu dhacay bitcoin ee soo sameysatay bear market ee soo gashay waxay sameysay area-dan waxay soo jibisay hidden oo kal iska aragay sameysatay oo ilaa area-dan kale okay another time idin maxay sameysatay idin hidden kan oo bam kala dhacday meesha new all time high kala soo sameeyay BTC oo ah ilaa iyo waxay dhaqaaqday percentage oo ku 10% ma sha Allah wax kale laakiin waqtiga dhadhaga kabuur qabo bilowg shay tobakeeda ma yar askeen marka maxaa dhacay marka la dini loogan kale oo soo sameysatay ayr loogas kale hadii la isku fiiriyo maxaa soo baxay bitcoin mar kale inay sameysatay dini another hidden bullish divergence oo continuation divergence kadib maxay sameysatay dini all time high kale sameysatay bitcoin ilaa iyo waxay dhaqaaqday 200% ee dhaqaaqday 200% ee aad u dhaqaaqday wow ma sha Allah
wax kale ma okay all time high kale soo samaysatay marka la higher low kale soo samaysatay zone ka markay soo laabad kadib tan maxay samaysatay tan another hidden oo ah area-dan ilaa area-dan ah hidden bullish divergence ay samaysatay kadib maxaa dhacay bitcoin maxay soo samaysatay markaan percentage mar walba soo heeraana bitcoin koos aad weyn ay samaysatay marka waxaa dhacday marka inay samaysatay new all time high kale samaysatay oo ah 700% dhaqaaqday macna boqolkaaga door 700 door isku bedelo waa faham shaxda faham marka another markii dina maxay samaysatay mar kale maxay samaysatay dina bitcoin mar kale maxay samaysatay hadda fiiri haddii aan fiirino area-dan waxaa noogu jira halkaas aa ku haysanaa another hidden bullish divergence waxaa dhici karto another dhaqaaqka 300% haddii dhaqaaqdo oo 60 all time high haddii kuu samaysatay profit ka bilaabanaya profit starting oo halkan aan ka arkaynaba aanoo bilaabanayso kadib maxaa dhacayso in kadibna profit ending-geena kadib waa isku dhawaatay banaanka ka tagay suuqa si jabi degan oo cilmi ku dheehan yahay qaal iska arag marka waa kana wax kasto ay sameey jirtay isla sameeyay maanta way sameeyaysaa waxa ma ka duwan intii hore wax kama duwan hidden oo ku jira in ay lagu dhaqaaqay haddana mar kale okay waxaan isla fiirinaynaa marka daily time frame noo soo haray daily time frame bitcoin waxay sameey jirtay okay daily time frame keena for hore joognaa miyaa si camal daily time frame bitcoin hadartaan maxay ku socotaa bitcoin trendigeeda hadartaan muxuu ku socdaa bearish ku socdaa mujida bitcoin trendigeeda muxuu ku socdaa bearish ku socdaa haddii halkan aan fiirino labadii loogu dambaysa da saarno waa ka trailankiin halkan bitcoin next resistance hadda ay haysato meeshan waa halkan waa next resistance bitcoin hadda ay haysato area-dan waa okay next support kale ay haysato aabe next support ee bitcoin hadda haysato waa area-dan haddii laga maarmi waayo ama news xun soo baxo bitcoin area-da ay imaan karto waxaa intee waay haddii soo daadato area-da ay imaan karto ilaa iyo meesha ugu dambeeya BTC ay tagi karto dartaan waa 57 ilaa iyo 56 area-dan meel ka hooseysa bitcoin ma tagi doonto dadaa waxay leeyihiin 49 konton cilmi kale waa hadday tagto cilmi kale loo siyaado wax 10 ka baranayna laakiin aniga aan taxliin aad waxay noo sheegay haddii bitcoin lacag ee daadato area-dan saa ugu bixi karto kadib iska bixi bitcoin new low meel ay ka sameey kartaa dartaa ma u jeedin dhammaan taxliiladeena markaa fiirinay oo min weekly min daily time frame hadda daily time frame ka haddaa fiirinay bitcoin reversal ma noo jira yes bitcoin reversal ma noo jira weliba ma noo jira reversal ma noo jira bit laba lagu reversal qurux badan lagu sameeyay kadibna dhaqaaqana targetkooda waa la soo dhameeyay another haddii aan fiirino isla daily time frame-ka gab ka dhaanatan haddii aan fiirino halkan waxaa inoo jiro halkan okay trailine keeni oo la qaado reversal keeni nagu jiro meesha haddaa ka fiirino bullish wedge oo kaaliska aragay waa cariiri karnaa oo bullish reversal kii baatane marka bullish wedge waa la jabiyey marka support ka dartaa bitcoin ay haysato waxaa waa area-dan kuna noqonaysa area-dan laga celinayaa area-daasna waxaa waa area oo laga soo celinayo maxaa waa area-dan zone-ka aad ku adag waa meesha haddaa fiirisidna waxaa nagu jiro pattern cajiib ah oo ka reversal ah asigani kaale iska aragay marka haddii aan fiirin meeshan head and shoulder sameynaysa steel forming waaye wax oo sameysan oo dadkan u dhameystiran yahay ama goormo dhameystiran markii area-dan kore la qaado areas kore
markii la qaado areas goorma la qaadaa marka waa weyn ay barayska halkan oo doonto barayska kan hadoo doonto koowa laba ah next areas doonto markaas valid waa dhaqaaqaas sameey oo halkaas kore doonto dhaqaaqaas oo sameey halkaas kore oo doonto markaas valid noo yahay kadibna waxaa noo dhici doonto soo noqosho yar oo sameey doontaa bitcoin zone kan AGBC ku soo laaban doontaa kadib dhaqaaq kala sidii sida ii sheegayso sidaasi ayay ila tahay marka eridan hadaa fiirisidni waxaa waay area range lagu gala waa area range lagu gale oo kaal iska aragay marka maxaa dhici karta marka in range-kan hadirtaan hoostaani joogtaa dhaqaaq kale internet sameyso soo noqoto waqti range waqtiga dheeraado hal mar bam dhahdo halkan soo taabato range ay kusoo dul laabato kadib kale dhaqaaqaas kale oo xigo haddii aan fiirino asaarno fib levelka zoneska laga soo celi karo BTC ilaa hadirtaan maku laaban wujid area laga soo celi karo BTC this supply zone kaas oo dheelitaan frameka supply zone kaas markasta area laga soo celi karo waxaa waay this 0.5 areadaas waa 0.5 kaas marka area iska banaan waa marka waa la tagi doonaa waa laga soo noqon doonaa kadib waxaa toos loo aadi doonaa supply zone kaasni trend ka banaankiisa waa trend kaas banaankiisa mar haddii la tagani maxaa dhacayso in loo soo noqdo dhaqaaqaas kale aan sugan ilaa bitcoin ka qabta ay ka dhaxdo oo aad daba bursano dhamaanteen hadeertaan bitcoin ha bursan dhakadana ka korin tartiibka hadda raac BTC marka waxaan rajeynaa inaad wax badan ka fahanteen insha Allah guuleysta bitcoin areada sii jeedo waa bidin sii tilmaam already waa idin sheegay areada kusii jeedo bitcoin ilaa areooyinkaas waaye marka waa ka walba bitcoin sameysay daadashadii halkan caadi noo wada muuqdaan halkan divergency noo jiro RSI haday noo jiray RSI waa kana noo jiray marka loo kana noo jiro dhaqaaqana dhacay waa dhacday marka kaliya maxaa dhiman trailankii la aado bam la sii kadibni targetyadaas la soo dhameystiro intaas bisa hartay marka waa iska sugeynaa iyadana insha Allah marka waxaa sameysaa insha Allah taxliilintan waxaa soo dhignaa barteena X marka insha Allah flow garee imaada wax walba suuq ka dhacay min bilow ilaa dhamaad bear market-ka markii la soo aaday waa soo sheegi jirnay saash everkii bitcoin ka soo dirnay 74 keen 60 sii geynay bishii Febraayo eed markaan posteed soo dhigay midkan waxa ku horeeyay January 14 waa soo dhigay ujeedaa adii bitcoin 94 marayso bitcoin waxay soo sameey doontaan si Soomaaliya taxadar aan banaanka isaga tag suuqa isku diyaar DCA raashi xool jab anagoo markaas dheheno in price uu imaan doono areadan 94 BTC ina ka soo dalandilay dadka oo dhan oo buy ugu jiro ay keentid adigoo smart wax yar oo fudud u adeegsanay iyo amaga iyo magdhigi bis adan oo adeegsanay jaartii qaab u socda kan dhalada weyn ee suuq soo tuurnayso discourse ka soo dhacay magdhigi bitcoin 60k to 94 ina ka soo dirto account wax fudud ma marka insha Allah marka imaadeen waa kana marka areadaas imaaday horta mid kale November ay jiray oo bitcoin 90k embrace bishii November waxaa soo dhigay 20keeda bishii November 20keeda BTC embrace 90k embrace aan soo dhigay anoo dhahay 55 areadaas ugu dambeyn EMI-ga dhaqaaqa areada noo tagay kadib another dhaqaaq kala sugayna markaas areada dartan fursad waa taagan tahay sida suuqa ka aragno marka insha Allah uu ka faa'iideysta la dhigo bear market suuqi la ka hartaa wadid nimanka soo taxliilinay ku ka faa'iideysan la dhigo marka Twitter-keena lana qoran asxaab badan kuma lihin kaliya followers aad u yar ku leenahay marka Dr. Yusuf ayuu qoran waa ma kartaan
youtube-keena taa profileka haddaad tagtid waa ka helaysaa meeshuu saaran yahay. insha allah guuleysta inaa wax badan ka faa'iideen ayaan rajeynaa. taasna waxay ahayd taxliilinteeda BTC sida anaa u aragto aragtideeda iyo meesha suuqa aan ka galay. marka coins kale insha allah mid ugu sharxi doona weliba coin aad u jeclahay idin soo wada insha allah taxliilintiisa. waxa waay coinkaasna waa FAJ.ai taxliilin dhameystiran anuu ku sameynayo. marka insha allah waxaa idin soo busti gareynaa 2 maalin kadib asigana. mac salaam.